كاس رون أنتي آد آد بدتك أوجا أبال شكتين وأنا ويل رون أنتي آد قرني ماذا يقول تالي صومالي لماذا محي توني ولالكي دبد وان كرالجلنا يا مجلس الشلة عن قلدي مانتن صحيبان ملاينا يا محي توني وإن إيجا رالي نقضة محي توني وحي أن قلدو شيطان بيحقوا عليكم السلام ورحمة السود وهذا ولا لا قالق مبشر وإنه رالي إيجا نقضة مبشر دبد وإنه رالي إيجا نقضة وأنكو قرب تاجنا سيدا ولا لا يكو قرب تاجين بان أنا أنكو قرب تاجنا هاي waxaan u fiirinayaa hadba oo akhrinayaa shalaan magaca ka boodbooday marka maanta waa inaan saxo wiilkaas wasiirka arun anti waxa la iigu sheegay wiil aad iyo aad farmaajo maxaa ka wadaa Ethiopia Soomaaliya iyo Djibouti Soomaaliya iyo Djibouti waa same odaga dhex fadhiya Djibouti baa nabcay ma aniga Soomaali aan nacbay ma jirto kulligood waa ii wada walaalahay waana ii wada Soomaali وأكوس برنامج كعيق قلدنينا مستر دبت وحال يرويل هالجماعة وأنا وسير كأبنجا وحن ملاينا يا مركان إنا صفي عن الصحي ولالكي وويل وحال آد قرني مضى الصوماليات وهو انتهي وويل محي توني حليم السود وعديك الأبايو محي توني وويل كل وين تالي القضية قرني مضى الصومالي نمو ولو ضدك ماشي جوجو دنها اي كودا وين تا ايغا دن maxay toonay waana kaga mahad celinaya walaalkay wasiirka arimaha abniga maxay toonay arimaha gudaha ma amniga kartidii uu u yeeshay wiilkaas duba in uu maxay toonay uu dalka uu caawiyo aad iyo aad baan kaga mahad celinaya adinkana u sheer gareeya waxaan caawi u soo jeesanayaa oo kale maadaama dawlad deegaanka aniga dadka ugu weyn ay ka mid yihiin oo dad Soomaaliyeedna ay yihiin dad walaalahay aan ay yihiin run aantii sidaan ayaga kuwa Soomaaliya jooga aan ugu doodo baan ayaga lafsadooda markay wanaagsiina wanaagooda aan ugu doodaya wiilasha wasaaradaha jooga ee wasiirada ana mid walba ee ii soo gudbiyo in uu qof wanaagsan uu yahana in aan sheego run aantii waan ku faraxsanay waana sheegi doonaa qof walba hadii la soo gudbiyo oo dadku ay soo gudbiyaan oo shaqadooda la soo gudbiyo madaxweynahooda aad iyo aad rabbi magaciisa waa kalka wiilka ku soo qoran maxay ay toonay qof walba maxay ay toonay wanaagsan in aan sheegno oo dhamaanteen aan soo wada sheegnana waa wax muhiim ah wiilkaas walaalkay ah ee aan sheegay Mr Dube aad iyo aad baan kaga mahad celinayaa shaqada uu qabtay waana ku garab taagana okay madaxweynahooda sidoo kale wiilka dawlad deegaanka ka ah asagana run aantii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa wa alaykum asalaam wa rahmatullahi soo dhawaada dhamaantiin shaqada wanaagsan ee kelinka uu ka hayo aad iyo aad baan uga mahad celinayaa dadku aadana ishiisa carraa buuxisa wax walba hadii aan isku qabano oo wanaag ah inaan isaga xamdi naqnay ii tahay ani wiilkaas sida wasiirka ama aqaano runtii asaga waa laga yaabaa inuu social media iyo iga arka way dhici kartaa laakiin haddana in credit-ka uu leeyahay la siiyo qof kasta la siiyo wa alaykum asalaam wa rahmatullahi soo dhawaada in qof walba credit-ka uu leeyahay la siiyo waa wax muhiim ah waa wax anagoo dhan muhiim noo wada ah waa wax adiga muhiim ku ah in qofka liiraa waa mahadsantahay dawlad deegaanka inta baan kaga baxaya dhamaantiin oo isku duuban waad mahadsantiin wasiirka abniga waxa la yiri ilaa intaas dagaaladii ilaa maxay ay toonay meel walba wa alaykum asalaam wa rahma ilaa wuxuu daba socdaa yiri wiilkaasi ilaa meel walba uu daba socday wiilasha ciidanka Soomaalida xataa waa wiil ay aad u jecel yihiin Dube ma sha Allah maxay ay toonay walaalkay waan kaga mahad celinayaa haddii aanan sicinin wa alaykum asalaam wa rahma maxamed soo dhawo aboowe qaad xaafadii laga xukumeeyay kii barnaamijka waa idinkaasa qof walba soo dhawaada waxaan ku feeganahay oo kale oo aan ku socdaa dawladda Kenya Soomaalida degan waxaan caawa rabaa xildhibaanadooda oo faarax ugu weeyahay faarax waxaan dadkii run aantii aad u garab taagnaa
oo maxay ay toonay doorashadiisii dadka ee garab taagnaabaa ka mid ahaa waxaana u garab taagnaa wuxuu ahaa muwaadin soomaali ah soomaalinimadana aniga aan ka urinayay ahna soomaali ah baan aniga ku raacay okay waxaan caawa codsanayaa barnaamijkaygaana ha loo geeyo faarax macalin barnaamijkaygaan ha loo geeyo haddii ilaahay ku idmaayo kii axmed hebel uunsada ah ha loo geeyo xildhibaanada ka soo baxay embiyaasha ka soo baxay ee soomaaliyeed ee dhan kilibkayga waa in loo sheergaraya waxaan ka codsanayaa in loo yeelo meeshaas madaxweyne inta loo yeelo sida dowlad degaanka oo kale dadku inay aayahooda ay ka tashadaan dadkan maxay ay tooneen male gobortoore gobol kaliya kabigood wada leeyihin midka mandheero jooga tu midka wajaar jooga tu midka maxay ay toone ifa iyo xagar dheer jooga intoodaasi ma haystaan nin walba gobortoore unbaa meel u fadhiya waa in sida mid actor oo kale ah inta loo suubiyo la yidhahdo wacalaykum assalaam waraxma la yidhaahdo ayagana maxay ay tooneen meel inay isugu yimaadaan budgetka dowladda dhexe ay ku leeyihiinna looga doono oo ay ogaadaan wacalaykum assalaam walaalaha igu qaaliga dhammaantiin soo dhawaada maxay ay toonay in la yidhaahdo ayaga dhan la isugu keeno oo la yidhaahdo maxay ay toonay madaxweynahaas lagala xisaabtamo unbaan jeclaan lahaa aniga waa in la iga geersiiyaa aydhiyada noocaasay aniga aan wado waa in loo geeyaa waa in dadkaanu hooyo may fahamteen in la geeyo inta faraaruqaan maalin walba nala ku arkay annaga ee aan ku tafaraaruqsanahay hadda midka nairobi jooga waa ooyaya dhibaata haysata wada la-aan baa haysata biyo la-aan baa haysata adduun oo dhan baa haysta maxaa kuu soo haray midka ii sheeg ee soomaaliya jooga magangelyo ma haysto only wiilashaas dowlad degaanka jooga ee ayagana ku shaqeeya ee xoogga ugu shaqeeya unbaa laga arkaa dad fiican ama wiilasha halkaa joogaa laga arkaa intaan kale maxaa u diiday dowladda kenya maxaa u diiday soomaalida degan inay inta yeeshaan ayaguna oy dhinac isugu baxaan oy madaxweyne ay yeeshaan oo ayaguna iskooda intay wax u samaystaan ay ayaguna ay dhaan waa in loo geeyaa maxay ay toonay william wutu miyuu ahaa william wutu ninkii soo baxay oo soomaalida loo dabaal degayay horta ha soo dhawaada asaguna soo dhawow baan leeyahay ha soo dhawaada asaguna maxay ay toonay wiilkaasi waa ina inta loo geeyo faarax macalin ay kala hadlaan nimanka embiyada ah ee culus ee ugu jiro kenya ugu jiro soomaalida ugu jiro waa inay dhammaantood oo isku duuban ay suubiyaan maxay ay toonay inay isticmaalaan in madaxweyne intay samaystaan uu og yahay gobol walba waxa ka jira dhibka ka jira isbitaal la-aan hadday ka jirto iskool la-aanta ay ka jirto waa maxay dadkaan sawaaxiligu dhex fadhinayo waa maxay dadkaan ayaga dhan meelay wax u doontaanla soomaalidu haddaysan ayadu caqli aysan keenin ama maskax aysan keeninin weligood iyo allood fadhi xumada kama baxayaan dadka degaanka dowlad degaanka kenya dadka degana saas baan ugu waxaynaya anigu waxba igama geli kanaa ku quracaya kanaa qansaxaya waxba igama quseeyaan midkii aniga wanaagsan ee aan ka dareemay inuu wanaagsan yahay ama haykal dowladnimo ama wanaag dowladnimo uu ku jiro halkaasaan soo dhigaya waan ammaanaya jagac dheh wacalaykum assalaam soo dhawow axmed aboowe soo dhawow maxay ay toonay halkaas baa soo dhigaya waxaan le war hebelow waa mahadsan yahay hebel waa mahadsan yahay hebel intaasuu qabtay kan kalena waxaa laga yaabaa inuu ku daydo oo uu qabto hadda wiilkan wasiirka amniga ah ee dowlad degaanka etoobiya aan ka sheegayo dube waa wiil run aantii shaqadiisa u furfuran una samaysan in uu qabto qofka binu-aadamkaana waxaa la rabaa in ay dadku inay ku jecel yihiin adiga aad ogaatid ma ahan in aad u samaysid ma ahan wiilkaasi wallaahi ilaa xala waxaa la iga soo wacayay meel kasta wacalaykum assalaam waraxma ilaa meel kasta xala la iga soo wacayay wiilka maxaa u sici weysa magaciisa war magaciisa way igu adag yahay ninkaan way igu adag yahay magacaan u subiyey u qabaay u kaadiya wiilkaasi dadka isoo wacayay oo ama ilahaa wiilkaasi anagu nala jabhadeeyay ama anagu wasiirkaasi uu nala socdo lahaa aniga ma aqoonin laakiin dadkii uu la shaqeeyay wiilal ciidan ah oo soomaaliyeed baa isoo wada wacay oo ii sheegay oo yiri wiilkaasi waa wiil fiican master dube maxaa kuu soo haray maxay ay toonay farxiyoy waa inaad sheegtid waa in aad ku dhawaaqdid inuu wiilkaasi wiilka arrimaha amniga haysta ee dowlad degaanka in uu yahay laf dhabarta
bishaaro khaliifay soo dhawow naa soo dhawow bishaaro khaliifay ayaantaan sibaad u dhuumanaysaa garabti waan kugu tufayaay soo dhawow bishaaro khaliifay ayaantaan kuma arag intaasna waa kaftanka halgamaa sare inay taabaya marqaati ka ahay faanoola fari kama qodna hadday waxay rabtaa bishaaro khaliifay in baasha inta kor la isku soo qaado la soo istaaga hadday rabtaa soo socaan ku iri soo soco garbasaarkaaga inta soo dhifsatid ma ii fahamteen wallaahi wiilkaas ilaa xalay inta umad isoo wacaysa cadad iyo xisaab ma lahayn war wiilku waxaa is iri wiilku show anna aan aroosee xoogaa yaa war master dube intaa caawa loo geeyo وعليكم السلام والرحمة برنامج كان قاعد الشير قرية يا ها مبشر انتهى لوجيو مبشر انتهى لوجيو واحد هذا مبشر ومضي نوات فرعيه كسر قيلسين مبشر وإن محي اي توري مبشر انا يا وإنا يقول يا وإنا مبشر وإن يا وجاي كلب كياس وجاي ويلك ويلك الدولة دجان كا وزير كأبني كا وجاي مبشر دبي وجاي مبشر دبي وجاي والله إلا حلا والله بالله واللي جاي لبها بين أو إسكو لايف أبد كيكم الصور نقول ويلكاسي مع أيضا كي تشوجا الصومالي تشوجا حتى يصور وعي صحيح لين فرعيه وإنا كسر نقطة ويلك مجلس السعد والويلك وارق حفظ واي ورويلك وحفظوا هذا حتى ورقتي هرتها لانك وحيدي والله وسكة استطاع يلا مجلسيا كينوا وانا صاق قابلة يعني قد دبا نورنا يا هاد كدب ما يفهمتين مركا قف كستقو بلو آذن ايه وناكسن ومضى الصوماليات باشيجيسة وسيرة انت وناكسن ومضى الصوماليات باشيجيسة هدون كلين كسنات شوغو ايه هدو الدولة دقنحي فضر هالك او شوغو ولقى إيه الله أنا وأوفر تجري قف إسكمل راعي جنا قف كأن إسلاي مسكح هذا يدك وضني يد ما يكدكتي با والله ولقى إيه الله يتاجره وما تاجره كنا يبل وما تاجره كنا وحبالكيسية وما تاجره كنا وما تاجره وحن أتاجره قف كمواد وضني أمية بناك سان أنا كنا عواد تاجرية سيدا ويل كاسد عن أسوق قاتكلو بار أسوق قادرية قف كستقبل هذا الوضك وحلو بعيا إنه قرمتك كجيستو inuu degdega ka geysto inuu sida wiilkaas umadu ay la wada oyday oo kale oo jooga kalinka sanaad jooga oo kale in ay dadku ay wada noqdaan waa in loo wada shaqeeyo waxaan arkayaa dawladii dhexe aniga koofidaasna waa haystaayo markaan raba nabadoonad baan ahay tusbaxayga koofidayda waxayga dhan waa isku kay kor saaran yihiin ma jeedaan ya waxaasoo dhan baan halkaa daaraba juluq isku siinaya yaa iga fiican ilaahay amarkiisa ku dhacay laakiin timii baa soo celinay yaa timii baa soo celinay ilaahay amarkiisa bay ku dhacday khaliifadu cayaar ma wax walba waa isugu toosan yihiin baa idin wax walba way isugu toosan yihiin khaliifadu maxaa soo haray dad baa ku cayaarayay daaya dhaqanka Soomaaliyeed anigu wallahi kal iyo laab waaba jecelahay imaamada iyo اللي معوستاني حيرنا معوستي وما بخر because سبلا يقول تلاقين لكن قميص كي بالك عمامة دي قوي شال كهائي كوفي دي هداء يطلقين كصومالية دوي وايستا ما شاء الله محا صاحري ودن كاني وعكت ترسل ليري معمول حافظة ديدا اللي يسقو يريا شركات معمول حافظة ديدا اللي يسقو يريو وما ملاينا يمد وحكا سعونا يعني إنو يهي because ودن كتنبا دقال بيكو جيرا قور توتا او قشنا توتي او قشنا الله قورو واجي انا قلنا لينا يمحا توتا او قشويس الله قور لكن ما انت waa ku taageersanay ما انت waa taageersanay aniga qof bilow aadan ah ee dhibaato lagu soo biyo waligay iyo Allah ma waxay sameeyo laakiin Soomaalidu ayaga xaasid isku wada ah wallahi maalintii aniga dagaalkayga degmadayda aniga la duqeynay uqsim billahi dad baa daawanay igu daawanayo hareerayga aha haddana oo aan ka naxaynin laakiin anigu halka waxaan u joogaa inaan Soomaalida dhexdhexaad aan u ahaado illa ibaday in aan go'do ma ahan laakiin waa inaan dhooseen uga socon kara qof walaalkay ah oo la dilayana inaan fiirsado ma ahane waa inaan iraahdaa qofkan walaalkay ee la dilayo waa inaan ka dhiidhin kara ama aan ka dhiidhiya shalay markii la idilay qorqor waa idaawanayay kuwooda dhan ee galmudug jooga waa ay wada daawanayeen saaka maxay maraysa umadii motorada in laga gubo because dadka la dagaalamaya waa cadow nala ku dhex beeray weeye oo aan ehel galin oo aan diin nala sheegan dugsiyada quraankay nala joogan oo iskooladay nala joogan oo masaajiday nala joogan oo meel walba ay nala joogan okay
haddii aanaan marka dadkan annagu aanaan dhinac inta uga soo wada jeesano aanaan dhihinin war ordoo naga taga aanaan dhihin ama aanaan iska celin wacalaykum assalaam waraxma ama aanaan iska celinin annaga asxaan nooma hayaan noomana haynayaan laakiin maxaa asxaan noo haynaya waxaa asxaan noo haynaya markaan annaga dhan inta kulligeen hal xaba aan noqono beladaa nagu soo duushay ee lacagta inta la siinayo meel ay ka yimaadeen aan gara weyne inaan iska celino weeye munaasibkayaga war degaan nabad ama ogola ma arki karaan meel nabad ama ogola waxaa lagu leeyahay gaalaan la dagaalamaynaa gormaan anigu gaal noqda anoo laa ilaaha ila allahu leh gormaan gaal aan noqod cunug yaroo maskiin oo baahayna gormu gaal noqod waxaa lagu leeyahay koonfur galbeed baa maalmahan hadda celcelis loogaya oo meelay u maraan la'ya 12 xalo wallaahi qolaa wixii iiga sheegaysay nimanka nisa lagu sheegaya ee jooga nisa u jooga wallaahi wacalaykum assalaam waraxma waxay lahaayeen xala dhan waxay ku fakarayeen war waa inaan ku duulnaa maxay ay tole koonfur galbeed waa inaan beledweyne ku duulnaa oo dadkaan edab aan barnaa war dadku gormee edab nala barayaa sow annaga dhaqan kuma annaan dhalan sow diin kuma annaan dhalan sow islaamnimo kuma annaan dhalan waa maxay waxaan xaaraanta ah ee maalin walba inta ooyo ordaya haddana ummadii laynaya oo ceelashii gubaya oo guryihii gubaya oo degaankiigu xaalufinaya war maxay ahaayeen annagaa la isku kaaya itixaamaya qabiil baan isugu noqonaynaa markaasaan qabiil isku laynaynaa hararararaf inta nidhahnaa qabiil isku laynaynaa waa ordaynaa xaggaan u duulaynaa waa ordaynaa annagaa cadow isku ah war bismillaahi raxmaan raxiim inta nidhaahno cadowgu naba kala jeclee waa ka faa'iidaysanayaan hadda ka hor baa waxaa igu tiri qolo waxay dhaheen waxaan ifka ugu jecelnahay markay ayagu isaystaan waa ka faa'iidaysanaa war waxaan muslim ma wacalaykum assalaam waraxma waxaani muslim ma ahan lagumana tilmaami karo wallaahi baan qofka ku tilmaami karin ruuxa asagoo qof asaadanaya xabadda ku dhijinaya inaan wallaahi islaamnimo xataa aan lagu tilmaami karinin waa tuugo waa qaa'imiin isku wada yimid waa balaayo isku wada timid waa maafiyo waddankayaga inta ku soo duulay fikrado shisheeya inta cambaarsan aniga asxaan aan ii wadin ilmahaygana aan u wadinin maxaa noo eg inaan iska celino waxaa lagu leeyahay maxay ay toonay waxaa lagu leeyahay shir baa loo yeerayaa shir baa la gelayaa shir baa la isugu imaanaya war shirka la isugu imaanaya xagguu jooga ii sheega shirka la isugu imanayo oo maanta ummaddu ay isugu imaanayso oo laleeyahay filanku kaadi odagii joogaa isugu yeeraya yaa kuu imanaya haddii ninkii xildhibaan baakii ii sheeg madaxtooyadii haddaad adinka keligiin aad wada haysataan haddii 20 qofood 30 qofood ee ka shaqaynaya hal beel keliya ay yihiin haddii kii mise jooga adinka uu yahay haddii kii kale ee far la qaada adinka uu yahay haddii wasaaradii inta fiicna adinku aad isugu tagteen yaad u malayn kartaan inaad u dhirwaayeynaysaan yaa u malayn kartaan waxaan shir ma lagu noqonayo wallaahi baan ku dhaartay nimanka maamul goboleedyadu waa meeshii la idinku dili lahaa ha isugu imaaninina lafta gareerow ha imaan alguud abaalkii qorqorow ha imaan maxaa kuu saaray odaga dariyow ha isku imaan wallaahi waa meeshii la idinku dili lahaa oo bilaahi waa meeshii la idinku dili lahaa wacalaykum assalaam waraxma soo dhawaada waa meeshii la idinku dili lahaa sun baa la idii qooshaya oo madaafiic baa la idii qooshaya war meeshuu cali dheera joogo oo caawi uu dhex fadhiyuusan aniga wax allaaliya wuxuu ila fadhiyo la arg war meesha uu jooga ii sheeg maad karataay uu dhex fadhiyo wax allaaliya wax aniga iila jooga la arg war meesha uu maad fircoon intuu fadhiyo dowladdii asaga uu ka yahay haddeeray wiilashii social media ku jireen qateeray dheen dowladdu waxay leedahay baalkii muxuu ah wixii ay la dhihi jireen waa leedahay milkile yuu noqday faarax toobaas baalkii ii sheeg midkaan kale ii sheeg muxuu ahaa faarax toobaas iyo maad fircoon iyo midkii kale muxuu ahaa bu wada saddex nin bay wada noqotay asigaa madaxweyne ka ah war ay isugu imaanina allihiin alla adduunya dhiiggiina ma daawan karno idinma daawan karno idinma waxay karno iska ilaaliya dhibkooda iyo shiddadooda war ninka allah u naxariista dadkaagii aan u quurin oo soomaalida dhimanaysa allah u naxariista u quurin oo kuwa ceelasha laga gubay allah u naxariista aan u quurinin oo le saakay dagaal baa la galay buu dagaal buu iclaamiyey dagaalku iclaamiyey muxuu ku iclaamiyey xaggu u iclaamiyey dagaal buu iclaamiyey aawa dagaalku soo shabaab inuu ka tirsay idinma muuqato ya waryaada qaada geeya barnaamijka xaafadii laga xukumay may la socotaan war meeshaani daw ma haysaan oo talo kuma haysaan oo dadnimo kuma haysaan aniguse galabta waxaan u soo galay
inaan wiilkaas ummaddu ay u dhawaaqaday oo ummaddii oo dhan madaxa igu dhaka faarisay inaan idhaahdo wacalaykum assalaam waraxma soo dhawow inaan idhaahdo waad mahadsan tahay inaan idhaahdaan usoo galay mubashar dubay in aan idhaahdo waa mahadsantaan usoo galay magicii shalay iga sidbaday dhaka kalu aaday inaan idhaahdo wiilashii ii soo sacay magacyada ee shalay halkaa kusoo qoraya anta okiyaali baan qabaa islaanta ayeeyada okiyaalaha hadday sagishan waxba ma arkaysa moogta ayeeya waa inay okiyaalaha dalaq isku siisaa markaan okiyaalihii dalaq isku siiyey baa dadkii oo dhan kaliir may la socotaa maxay tani qof kastoo sheergareeya barnaamijkan wiilkaa walaalkay ah waxbaan isleeyahay aroostido maasha allah ya wiilkaa inaa aroosaa doonaya madax ka dhigo kaala ar ka dhigo maasha dhagayarahaasina cabba jaasi iyo qorfaad isku jira inta isku darsataan cabba waxaa ku noqonaysaan adinka dhan waa ku wada caatoobaysaan cudurada dhan ee daaweynka u qaadataan isaga sokorta dhiigkarka waxa dhan isagaa idinka baabi'inaya asagaa idinka baabi'inaya waa inaad asaga cabtaan waa inaad naftiina u roonaataan soomaali dhegaraay may la socota halkaabaan anigu idinkaga baxayaa caawa caawa waa shactiro iyo sheeko may la socotaan maxay ay toonay in aan cabaar inta idii soo galo oo idin madadaaliyo oo wiilkaas shalay aan magaciisa qalday aan maanta saxo oo aan idhaahdo war waa mahadsan tahay aan idhaahdo oo maxay ay wiilkani koobi badanaa horta bala kala tag iskoobigaasu sabiirida dhan iiga hadlaya mararka qaarkood waxaa isdhahdaa baloog dhag ma ku siisaa asaga dhanba wallahi waaba nibcay hal wax oo maalintaasoo dhan intaa ku jirtid uu kuu soo guray wacalaykum assalaam waraxma soo dhawaada wallahi waa la yaabaa waaba la yaabaaba qof baaba koobi iska soo dabagelinaya waa iska soo ka daa xataa ma yaqaano bisinka rabbi maxaa soo haray qofkii wanaagsan waa in congratulation la yidhaahdaa ya waa in la yidhaahdaa qofka wanaagsan congratulation waa in la yidhaahdaa wiilka soomaaliyeed ee inta shaqada qabta soo shaqeeya ee say tahay u shaqeeya oo soomaalidu ay jeceshahay waa in la yidhaahdaa congratulation waa shaqaysay waad wanaagsan tahay sida wiilkaas maanta aan meesha soo dhigay oo kale ya inaan dubbe idhaahdo ya waxaa la yidhi dubbaha waa kugu dhib dubbe ya dubbe ma fahamtay wiilkaas marka dadki dhagiiba iga soo cunayn mar haddaa arti qof anoo la buubsanoo wada aad aragtaan waa qof la igu soo wareeriyey oo ummaddii igu soo kicisay ya wiilkaasi dadki igu soo kiciyey marka waxaan isleeyahay show ya war caawa horta asagii ugeeya bal kilibkaygaan ugeeyay waxaad tiradaa farxiya maanta adeeg ku adlaysa dhah ugeeya kilibkaygaan wiilka la igu sawaalo ciidankii oo dhan oo dadkii oo dhan oo wada jooga ay leeyihiin ya soo wad ay leeyihiin mubashar dubbad miyuu ahaa dubbad mubashar dubbad waxaa la ileeyahay wiilkaas waa inaad dowlad degaanka iyo soomaali nabi maxamed oo dhan aad ka gadaa ya mubashar dubbad waa inaad u sheegtid baa laleeyahay dadkii oo dhan waxay leeyihiin waa inaad mubashar dubbad ya waa inaad shaqada wanaagsan u aad qabto dadka aad u sheegtid war caawa dowlad degaanka wasiiradii kale xaggee aadeen wiilkaa wasiirka amnigaysta wallahi waxaa la igu leeyahay qolaa waxay igu tiri wallahi inaana been sheegin ilaa dagaalka 4 koona uu ka socdo wiilkaasi 2 indhood isma u sagala xataa daba dhulma uusa dhiganin may fahamteen مسؤول أبس exactly مسؤول آد قيمة أولوية مركي حقيقة ذا لفيري والله وعليكم السلام ورحمة والله وحال يقول لي حالي شالي حوقا سنوان وحي سنايو وأوكع سنايو because ميدتكي إيه راوعي إيه مالمها المضحة أيضا يحنونايو إلهي وحبتي وأوكي أمبا وحان اسكسو عن صاقر اللايفكا ويلكي مقعيسي مقع كلام دوشا كسان لكن إنان أسيقا أن أتشادو إدريمي waaba igu soo kaceenba wax allaale iyo waxa ka sheeg waa garan waay markay xala isoo waceen cajaladii un baan dib u dhagaysta wallahi waa kuu soo qornay
iftiinka markuu kugu dhagaya oo indhaha iftiinka ay qabteen ma arki kartid markii dambe un baan fiiriyay oo aan fiiriyay dadka qoraalada ay soo qoreen un baan markaan fiiriyay un baan arkay 12 xaalad dhan ma seexan u xifdinayay wiilka magaciisu waa magac adag abayo magac yar oo qafiifan dhaq ku siinayaayo wasiirka aan leeyahay abniga la yiraahdaa Mr. Dube ya waa inaan magac yar oo dhaq aan ku siiyo because magaciisi waa keen waay aan waa qaban waay ma qaan ma islaanta ayeeyo 80 jirki iyo 90 jirku markaan da'daan oo kale ay gaaraan 90 jir ayeeyooyinku ay noqdaan magacyada ma qaban karaan marka waxa isir ma magaci يا مباشر دبت وقبا واي سكستا دي اير وسو دغان واي مسؤول كاسري سلام سرا دغر ما شاء الله مسؤول كاسي سكستا دا يلا وسو قبا واي شله مجعيسي نجيكن markaasay qaylo ilaa xal weligay ma laba maalmood oo isku xigta life waxaan la galaa waa problem dalka oo ku soo saacido wallahi wixii ugu kaliftay inaan soo galo ciidankii iyo wiilashii iyo dadkii isoo wacay warwiilku waaba wiil kaala arag ah ya waaba wiil kaala arag horta subax adda kadib markaan soo galayo wiilkaas waa inaa taariikhda ku xusaa maxamed saasma maxamed ummadaas daan maqla ma jeceli wallahi waaba ku haystaaba ummadii oo dhan qof ay la qayrinaysa daa aragtid soo qof ma aan cajiib ah ya mubashir adduunkii oo dhan Soomaalidii oo dhan baa qaaq u soo tiri marka dhibkiisu waa dhibkayga haddii wiilkaas wax la gaarsiiyo farxiya social media ugu jirta loo gaado hala iska ilaaliyo mubashir wallahi waxay ku qaylinayeen waxa wiilku muxuu yahay wiilku muxuu qabtaa waxa la ugu leeyahay dagaaladii wa alaykum assalaam wa rahmo soo dhawaada samsam soo dhawo waxa la ugu leeyahay dagaaladii markii ay socdeen dagaalkii markii uu socday wiilashii wuxuu ahaa aan dabada dhulka dhigin buu ahaa wiilashii wuxuu ahaa aan toonay furinta ugu horeysa ee dagaalka taagna waaba yaab waxa la wiilka Soomaaliya qaado sheer garay haddii aan qof Soomaaliya la amaano Soomaalidu waa xaasidiin haddii aan qof la amaano waxay moodaan waa wada xaasid loof siin mayaan oo ma siirayaan maxay ay toonay uma baarigayaan qofka wanaagsan waa loo baarigaa waxa la waa maadsantaa la soo yira wallahi inaan aqoon iyo billahi wiilkaas wallahi inaan aqoon 12 xalana dadku naftay iigu keenay مبشر إلين مبشر دب وأنا صوشتا وسيرة كلنا كان والله واشيجية وأنا إلين ينو واشيجية دولة دجان كوسيرة تشوجاو هدي متك مالية دقين نقطة هدي متك ابني وأنا جوده هدي متك جاسر نيجا أي نقطة هدي متك عافمات كأي نقطة هدي قبلها أي نقطة أنا مت يجي الله ما أركم مت كل إيرادو مت كاسوا مت في عن برتاسان الصفر السنة أول إلى فرعية الدولة دجان كإلوبين ما لاحظ الدولة دجان كإلوبين أكثر واحد شيكتا أنا يجرا واقو كاسا مركات هذه أوكي يا إرادة كفر قلبات ورق السية كفر قلبات هاي وعليكم السلام ورحمة سودو ولا قيل سودو كفر قلبات ورق السية إذا كي بدنا أبي بنا كلا كنا لا ندير دلي ساس بطوطين تيسوق تاجي وعليكم السلام ورحمة ساسو موميا واكو السلام عبرير مو ان maxay ay tooray intuu saatootii isugu taagay ba ilaahay baan ku dhaartay laan dheer dhalay haduu jiro waa lafta gareen laan dheer dhalay haduu jiro iyo wasiiradiisa walaykum assalaam wa rahma soo dhawaada saasa u cartamaysa koonfur galbeed hayaay ka soo baxay hayaay ku jirta wallahi been inaana ku sheegayna koonfur galbeed waa dhaqaaqaday dawlad caasimada magaalada koonfur galbeed baa laga dhigayaa horta magaalada waa u fakaraynaa laakiin dhamaanteen hadda saan ku wadno waa inaan dib inta u noqono oo horta annaga aan isku tagno waa inaan meeshaan caasimada ka dhigilayn aan keena lafta garangeesi koonfur galbeed wa alaykum assalaam wa rahma soo dhawaada koonfur galbeed dhamaantiin saad u wada dhantiin kal iyo laab baan ku irwada kugu ambalyeynaya kal iyo laab wa alaykum assalaam wa rahma soo dhawo wa alaykum assalaam alayda magacyadooda in la sheegay bala idan dhaliweys cali safar iso ay tony en koonfur galbeed aad baan ciidankiina iyo wiilashiina geesiyaasha ah iyo madaxweynihiina geesiga ah hadda waa inuu lafta garay ku xigeen kana aniga iga dhigaa soo cidayadu xaq uma lahayn aawe soo dir uma lahayn ku xigeenka waa inuu lafta
lafta garan waa inuu aniga kursiga inta saa ii soo fariisiyaa qosol badan uu ka dhargilahay wallahi billaah maxaa dhacay soo anagu ma lahayn koonfur galbeed ee madaxweynaha saasaan aniga asaguna kursiga markuu soo fariista ana kan jac bismillah laba cidoo dirisa hadda waaba ujeedaa isku mid baaba nahayo wadanka waaba arkaysa wacalaykum asalaam soo dhawow saari soo dhawow abaayo maxay ay toonay wadanka inaan ka wada talino waa qasab nin halgamaya halkaa ka halgamaya social media ka halgamaya iyo nin dalka gudihiisa ka halgamaya wey marka waxaa la rabaa kursigaan annagaa iskalayn awalba annagaa iskalayn anigu waa ogaa inaan anagu lahayn laakiin wax walba waxa wax ku dhaafayay midda guud waa inaan ku dhaafaa laakiin dagaal markay noqoto anigoo diraa madaxweyne ku-xigeenka lafta gareen qofka iskale waa aniga ana dan iyo xaajo kamale haddaan rabana waa soo noqonaya waxaa leeyahay war lafta gareen waa ogyaa lafta gareen asaguna waa ii hayaa waa hayaa marka maxaa la rabaa in barta la fadhiisto oo shaqada qaranka inkastoo aan wada shaqaynayno shaqada qaranka lagu wada maqnaa oo in la wada shaqeeyo ay tahay haddana kuwa wax walba waxaa iiga muhiimsan xil kasta wallaahi waxaa iiga muhiimsan qarannimada soomaaliyeed ee istaagta hawiye qayb baa dulman siyaasiyintooda cid war ka dhegaysata male culimmadooda caaqilgalaynta war wax ka dhegaysta male inta xun ee ugu ducfiga ah ee ugu edabta daran baa maalin walba waxay tiraahdaa annaga haddaan nahay beesha hawiye annaga haddaan nahay beesha hawiye okay waa inaan marka kala dareernaa weeye dawgu waa inaan kala dareernaa kala yaacnaa laakiin waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsana wallaahi oo billaahi oo tallaahi been inaana sheegaynin inay koonfur galbeed intay israacda mid qura ay noqoto aawo cidaayiga dir ah car shabeellada hoose miyeed carraa idin soo dhaaftay wir qof walba meeshuu joogo waa inuu dalka difaaciisa uu ka galaa adeer saasaa marko waxaan xasuustaa ilaah waa ka iiga sarreeya waxaan xasuustaa saa maalin ay inta diyaaradihii amisom ay u kor istaageen ay u duqaynayeen weligay ma iloobo yaa wasiir ahaa xuseen carab ciise wasiirka gaashaandhigka ahaa cariyaa ay dhihi kara waa beentiin haye markaasaa inta la yidhi dadkaan magdhow hala siiya magdhow dadkaan hala siiya waa lagu kala tegay maxaa ii xigtay dowladdii ninkaan caawa fadhiya uu jooga maxaa iigu xigtay waxaa iigu xigtay lambar konton geedkii cambaha oo ku yaalay war sax ma tahay mase ma ahan ma been baan sheegay maxaa ku sare waxaa iigu xigtay lambar konton geedkii cambaha ahaa oo ololaya markaan arkay oo ololaya 9 nin oo nabadoonno ah oo baydhabo inta ka timbuur agteeda markay maraysana saasa 7 hoo bariiska loo yiri candhada loo geliy صفية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما يفهمتي أساسا بابور كي أيجو أي سراين لوجلي هذا كي دعا بدر باكو طبعا ساكي مركو أساق صفر استكو نكي وقارة إيه لدلي إيه ما قاعد درد لقدر هذا كي وافو الله ونحرسته ورمحا أريك ماله الموبايل هاي بابا أي كيري ورمحا أريك إيه كان إن برايك ماسك يقدون كن الجو محا أي كيري ورأريك محا أي كيري إن مالك استعد دقيقة يجيدا يقولوا عيارو هذا السنة تدكو إنه يوعينا إنه لنا أرجو هوينا حد كمان قبوا وإهلا ضيدا وإدلي وإدلي لكن محل الربا adeer midkooda xun waa u jeedaa markuu midkooda xun uu soo hormaro aniga intee ku jiraa marka ma jiifanaya waa jiifanaya miya no ma jiifanayo raxween ninkii taabtaa waa itaabtay daarood ninkii taabtaa aniga waa itaabtay beesha jareen weyna ninkii taabtaa waa itaabtay beelaha hawiye ee maxay ay toonay ee ayagaba laga gardaran yahay ee la dulmay ilaan hawiye boqolaal qofood boqolaal kun ah oo dad ah oo waxaa jooga wadaniyiin ah oo ilaahay dalka ciidda iyo calanka inay joogaan jecel waxaa joogta 100 qofood oo maxay ay toonay calanka iyo ciidda kaaga kurba badan kuwaasina waa jecel laakiin aan nabcay tuugayga neceba tuuga daarooda neceba tuuga wiyo waa neceba tuugado dhan isku soo wada duba waa nabcay annaga la isku kaaya diraya waa la seekay faa'iideysanay wariyada qaada barnaamijka dikala meesha weyd kaga tagaya qaadana jaasiyay hay soo dhugdhuganine waxaad u cararaysaa waa aqaana calanka Itoobiyaanka oo aan meesha soo saaray abay axmed ana raacsan wallahi oo billahi ana raacsan abay axmed waa raacsanay waliba waxaan qabaa hadday oromiyaanka hadday gardarin inta madaxa inuu ka jaro maxaa ku soo Soomaalidu hadday gardaranta inta madaxa inuu ka jaro adeer qolo walba amxaaradu sidoo kale tigreega xunka oo bawdada isku garaacaya adeer inta ka jar abay axmedow نحن حريص ما
jirto waxay Soomaalidu ay u saari la adiyo looga warwareeganaya waxa weeye wax kala ma ahan waa calankaas Etoobiyaanka waryaada FIFA soo qora anaaba jecel Etoobiyaanki bismillah wiil waxaan rabaa Soomaalida Etoobiya inaan aroose hey watoto caawi soo waali doona kuwii soo wici jiray wiil Soomaalida Etoobiya joogaaba rabaaba inaan arooso hadhowna hees u soo qaada xaajigaygi noqo inaan ya waxay galaani bismillah waryaada qaada oo barnaamijka geeya xafadii laga xukumay xaaway waa ku salaamayna aabo barnaamijka sheer garee ma ila socotaan waxaa barabaaba halkaa wiil jooga inta arooso oo guri weyn rig aqal laba daryaale ah intay meel rig lagu sii yaa inaa iraado hooy intay indhaha isku qabto waa maxay yaa bismillaahi raxmaan raxiim laa caawo shargare kumas way la socotaan Etoobiyaanka calankooda markay arkaan ay sasayaan war Soomaali Etoobiya soo ma degana yaa Soomaali Etoobiya ma degana oo afar Soomaali saanaha yaa baa inta ka soo iskumay waa abooyaashay maxaa idinku dhacay qaada barnaamijka sheer gareeyna jaasiyana dawqinine hadii kala wadi kaga tagaya wallahi inaana idin shactireeynin aw wiilkaas madaxiisa u soo galay wasiirka oo baalkii u soo galay inaan maanta u shactireeyo wa alaykum asalaam warahma quruux badan idaaye qiimo weyn idaaye qalbiguna ku jecela ina soo qadaa ya wiilka Etoobiya jooga ee Soomaaliga anigu ajaanibka waa nabcay ma arooso laakiin waxa aroosaya mid Soomaali been idii sheegay wallahi ajaanibka jindigayga iska naxib been idii sheegay duusa luqada Soomaaliga ku hadleen waa la booda inta iraado ilaahu nafsay iga dhigin ya qiime weyn idaaye quruux badan idaaye qalbiguna ku jecela baab rabaaba inaa soo qaaday bismillaahi raxmaan raxiim marka haddii la arka calanka Etoobiya haddaan balaayo degdeg ku soqon la waa soo hoban lahay sharrag ya ayaanta waxa ay dhibo qolo YouTuberley ah wa alaykum asalaam waraxmat soo dhawo qolo YouTuberley ah ba ayaantaan i dhibtay wa kilibyadaydii bay goosanayaan caawa waa idin la hadlaya ay dhalay baan haddaana inta idinku dacweeyo yaa ana kilibyadiina maran ay dhalay baan kilib kasta ee aan duba waa goostaan waa gishtaan dalq wariyaada may weydiisateen ma isu aalateen haddaad afkayga aniguba waa ka shaqaysan karaaye afkayga aan wariyaada horta anna YouTube-kayga subscribe ka saara bal qaadi wa alaykum asalaam waraxmat dhamaantii soo dhawaada wariyaa YouTube-kayga weligay wandhay ma dhihin YouTube-kayga subscribe-ka ii saara weligay wallahi ma dhihin waana ii yaalaayo bartuu ii yaalla wallahi abadkay ma dhihin because anigu maba jeceliba waxaan maba raacaba anoo YouTube leh oo YouTube-kayga uu yaallo qaranimada igala weyn umadaa goosanaysa koodiya gashanay ayagiyaa ku shaqaysanaya war waxaasoo kalaa weligiin aragteen ku weydiisan mayaan oo kuma leh eedda ma qaadanaa hadal yar ma qaadanaa abaaya ma qaadanaa ilaa kama waaweyni waxaan anigu waan la ekaaye hana saalaxay soo dhawow hana saalax halgamaado sare bishaaro qaliif iyo adiga iyo meeshaanan maanta idinkaga jeeda soo dhawaada maanta halkaan waxaan xayeysiinaya wiilkii ahaa mubashir dubad baan maanta halkaan xayeysiinaya mubashir dubad baan xayeysiinaya haa soo dhawow hana saalaxay halgamaa sare war maxaa idinku dira marka war maxaa heedhahaye idinku diray aniga kilibyadayda ii sheega waxaa idinku diray ii sheega wallaahi waa idin dacweynayaa oo bilaahi kulligood waxaan leeyahay waa foojari waa feg miyaad i weydiisateen aniga waryaada adinka intiina hadda meesha joogta maanta boqolkaan iyo maxay ahay balaaya cirka idinkaga soo dhacday wallahi inaana idiin riwaayadaynayn waa idinka tegaya boqol iyo anigu waxaas inaad igu dhegaysataan daruuftay magacayga baa ka weyn way idinka dhaqaajinaya because waa qaadi diideen
باقادي ديدين أنا سارح يسود دو ماشان يوتيوب راي وإبرة واقعتي واقليين أي طليب أنا هدانا ريبور إذا قبل أي طليب أنا ولا هذا وجاي عاو يوتيوبر لي أنا قال يوتيوب كي وري هذا سبسكرايب كيسار مع ولا حد أول بقوم ذكر كل شيء قيصر يسمع حد يقول دي يسمع واللي جاي بعفك ومكر وهذا كيشون ترى إلهي وتشيش لان ديره inaan ay taasa idin qiraysa wallahi waa ka xishoon jiro oo billahi waa ka intaas oo sano uu youtuberkaygu uu yaala abadkay ano dhahay ma arteen youtubekayga subscribe-ka ii saara waaba iskala weyna waaba ka xishooda laakiin uma baaba lacag igu korsamaysataba way soo eegayaan waa ogyihiin hadda subscribe ii saara farxiyad daahir UK bal subscribe-ka caawa ii saara wax yar baa ka dhimana inta yar ee ka dhiman ii buuxiye wallahi ii buuxiye farxiyad daahir baad ku qoraysaan from UK فرحية داير UK بالضعضع يقصية إلا الأمة بقى يقرأ سنة يسألني أنا وجه هذا مركها قايلنا يا مسك حدا سيدير يا ميسو أيجي بقى عليا مركا أنا إيه سماية مرك توجع عروتي مركوب بحسبه والله بالله كل قد ربار بانكونا قبرية وحلاية كل قد وحي وطان بارك يجيبه وضغطان كوبي جرايد يجيبه وضغطان بالله أنت وحي وقران والله بالله كود عويري جاي أنا كو أنت إيجارسية نجاسية سومالي مريوني أنت إيجارسية يا أضي باقادنا يا أو هبر باقادنا أو ناق باقادنا أو متكلم الأرديس حداد يوتيوب كقشان يا الله waxa yaalo dhan hadaad aragtaan wallahi oo billahi waa adyaabaysan waa aniga kaliya iba ordaya Ethiopia FIFA iyo Soomaaliya ha noolaato Ethiopia ha noolaato ya war Ethiopia FIFA maxaa lagu yiraahdaa aawa kuwii Soomaali abow Soomaali galbeed ya maxaa lagu yiraahdaa FIFA Ethiopia adamno juno chab Ethiopia ya ma ifahmaysan إيسارة سبسكرايب كإيسارة هذا صالحي سوماليا إثيوبيا هنور عدان إدريو يا ترى ويه بعد عمرين يا ما يلصقتها برنامج كقاعدة ديك الوادي كجتجية هقول استان لبدو ده بقول يجبرني هن صالحي بيت كيجي ببحي توني يوتيوب كيجي بالسارة شلي كي أجلنا يمد بالتجا دلهم والله عررين دلق وروام حيوجان يبقانو وروام حيوجان أيجي بابا كوش قيسانية والله أو بالله أو الله ويدكو بحال إذا كو قبنا يا بالك ريبور بعد كو قبنا يا وعدنا بيهالكا وحيسناي ويرال واجرا أن أدايا ويل يرو هذا شرمك كسر قراء أكله فوسي مالي هذا مسافات بالي ما قال مقع صاصري هذا إسكسر تواب أدايا ويل كاسي because ويل هالكا تشوكا أنتي كلبيضة إذا سواقات قطوا حائرة بل بعشا ده وحق بريسو لكن إلا يوتيوب ولا نعم إلا يوتيوب ضفارة إذا الشيء كتشوتي بيع الضرب كميش dhamaantiin hadda anu iska tagayaa boqol iyo waxaas iyo qof lagu daawado waa ka weynaayo way idinka tagayaa because ma rabo anigu waxaan yararka oo aad igu daawanaysaan maalin aan buubsanahay oo cirka aan marayo oo aan idin imaadaan midhaas fiican ii daawan doontaan laakiin maantay wiilkaasaan u soo galay maxay ay toona wasiirka ah maxay ay toona inaan iraado hore u sii soco inaan iraado gul wanaagsan siyaasadda ka gaar inaan iraahdo maxay ay toonay Mr. Dube ya aan u soo galay meesha mubashir Dube inaan iraahdo guul wanaagsan ka gaar baan u soo galay inaan iraahdo hore u sii socon ka soo galay inaan iraahdo maanta ku wanaagsanaataan u soo galay dhamaantiin oo isku duuban nagu kala kaxeeya